وكما مصطفى عقجر halkee ayuu ku dhashay aqoontiisu waa herkee dabeecadiisu waa sidee balwad miyuu leeyahay hantidiisana waa imisa inta muuqaalka ayaa ku daawo doonta ee ka hor fadlan page-ka like dheh followna na soo dheh siina share garay si saaxiibo badan oo muuqaalku gaaro maasanid magaciisa saddexan waa Mustafa Maxamed Cumar waxaana loo yaqaanaa Cagjar wuxuu dhashay 1972 wuxuuna ku dhashay magaalada Awaare ee aaga Jarar ee gobolka Soomaalida Itoobiya waxbarashadiisii dugsiga hoose wuxuu ku qaatay dugsiga Awaare wuxuuna ku sii dhameystirtay dhagax buur oo reerkoodu guuray halkaasoo sidoo kalena dugsi sare ka galay waxbarashadiisii jaamacad wuxuu ku sameeyay jaamacadda Addis Ababa kulliyadda dhaqaalaha halkaas oo ka qaatay shahaadada koowaad ee cilmiga dhaqaalaha shahaadada labaad ee jaamacadda Masters ee isla dhaqaalaha wuxuu ka qaatay Imperial College ee London way aragnimadiisii shaqo Mustafa wuxuu agaasimo ka soo noqday macadka tababarka macallimiinta ee Jigjiga oo hadda loo yaqaan College-ka tababarka macallimiinta ee Cabdulmajiid wuxuu kaloo soo noqday wasiir ku-xigeenka waxbarashada gobolka Soomaalida wuxuu ka soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ka mid yihiin Save the Children WFB OJA iyo qaar kale wuxuu waayaaragnimo u leeyahay howlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay in Cagjar waxa loo bedelay dalka Zimbabwe 2006 kadib markii loogu hanjabay in la dilayo markaas uu gacan ka geystay in la kashifo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo TPLF ay ka geysteen gobolka Soomaalida Itoobiya Mustafa inta la magacaabin wuxuu u shaqeynayay howlgalka bini'aadanimada ee qaramada midoobay uu ahaa sargaal qaabilsan xiriirinta howlaha bini'aadanimada ee Soomaaliya October 2016 sida la sheegay waxa uu hanjabay maamulkii gobolkii ka talinayay markii uu hogaansami waayay digniinta ayay ciidanka liiw boolisku qabteen oo ay ka kaxeyseen aabii oo 70 jir ahaa iyo walaalkii ka yaraa Faysal Cumar magaalada Dhagaxbuur kadibna walaalkii gaari xoolo socda ayaa laga tuuray aabii sidoo kalena waa la dilay ugu dambeyn 2018 Mustafa ayaa majara u qabtay xafiiska dowladda deegaanka Soomaalida markii daaqada laga baxshay Cabdi Maxamuud Cumar kadibna xabsiga la dhigay markale ayaa loo doortay hoggaanka sare ee maamulka Soomaalida Itoobiya inta wuxuu sheekadeena ee Mustafa Cagjar markaana aanu gudagalno noloshiisa gaarka ah dabeecadiisa Mustafa ayaa nin dabeecad ahaan dadka la shaqeeya aad u fahmaan wuxuuna sidoo kale ku fiican yahay ilaalinta balanta sidoo kalena dadka la shaqeeya aad buu ixtiraamaa balwadiisa in Cagjar ma isticmaal qaad ama sigaar balwadiisu weyn ayaan ah inuu kubadda daawado isagana uu ciyaaro xilliyada maalmaha taariikhiga ah ee dowladda deegaanka Soomaalida saaxiibadii gaarka ah Mustafa ayaa saaxiib dhow lahaa wasiirka maaliyadda Itoobiya Master Ahmed Shide hantidiisa in Cagjar ayaa hanti ahaan leh 1,800,000 oo doolarka Mareykanka sidoo kale wuxuu ganacsi ku leeyahay Dubai Kenya Malaysia Tanzania iyo magaalada Muqdisho maxaadan kale aad ku ogaan Mustafa Maxamed Cumar daawade wuxuu qoyska Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ka diiday inuu cafiso fidiyo sidoo kale wuxuu diiday in 24 saac Cabdi Maxamuud Cumar raashin xabsiga loo geeyo sidoo kalena Mustafa wuxuu leeyahay ilaalo aad u badan kuma sanad la jaanqaadka sheekadan gaarka ah ee Mustafa Maxamed Cumar aragtidaadana qaybta hoose ee noogu reeb si na share garay maasanid